waayaha khiyaarta nala socota soo dhawaada mar kale meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 8 bisha December sanadka 2025 waa timinta labaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show. Dowladda Pakistan waxa ay ka faa'iideysanaysaa isbedelada ku dhacaya siyaasadda madaxweyne Trump iyadoo Islamabad ay furtay baal cusub oo diblomaasiyadeed oo ay doonayso in ay ku dhabar jabiso wadanka Hindiya. haddaba qorshaha la yaab kale ee dowladda Pakistan ay banaanka soo dhigtay maxaa laga yaqaanaa warbixin aad iyo aad ashqaraar u leh uu qoray wargeyskada Foreign Policy oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dibadda ayaan idinla wadaagayaa khiyaare oo ku saabsan iskaashi loo arko inuu caqabad ku noqon doono dalka Shiinaha iyo Hindiya oo ay Pakistan la furayso dalka Mareykanka markan Pakistan ma ka maarmaysaa dowladda la yiraahdo Shiinaha warbaan arinta idinkaga haya oo aan ku eegi doona dhigaalka uu wargeyskan sameeyay dhinaca kale nidaamka Israa'iil mar kale ayuu bahdilaad ku sameynaya dowlad Carbeed Jordan waxa ku dhacaya lama malaysan karo qubarada militarigana waxay leeyihiin tani waxay u muuqataa in Carabta meel fagaara geed lagu xiray haddaba Israa'iil ayaa maanta ku dhaqaaqday dhismaha gidaar weyn oo ay ka dhisayso xuduudda dhulka ay Falastiin ka haysato ee xiga dhinaca iyo wadanka Urdun dhismahaasi ayaa gaari doona ilaa iyo 500 oo kiiloomitir waxana ujeedadu ay tahay baa la yiri in looga hortago dhaqdhaqaaqida tahriibinta hubka sida ay tilmaameenba Israa'iil hasaatee qubarada militariga dowladda Urdun waxay leeyihiin tani waa ceeb iyo fadeexad Carabta haysata mana aha in laga aqbalo Israa'iil maxay tahay walaaca laga qaba Iran oo darbigan loo dhisayo barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan sidoo kale inta barnaamijkan joognay khiyaaray arrin kale oo naxdin la ayaan idin kula wadaagi doonaa waxa kamid ah ninkii Falastiiniyiintu ay ku hanweynaayeen oo la oranaya hadii ninkii Maxamuud Cabbaas ahaa meesha laga saaro waxa uu awoodi karayaa inuu Falastiiniyiinta isku keeno ee xabsiga ugu jira Israa'iil Marwan Barghouthi waxa hadda lagu gorgortamaya waa la dilayaa iyo lama dilayo warbixin uu qoray wargeyska Ra'yul Yawm ayaan idin la wadaagaya oo markii ay soo baxdaba aad la yaabi doontaan waxa meesha yaala qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faaqidaaddan kuugu hayaa khiyaaray soo dhawaada YouTube-ka ku soo biiro oo subscribe saara share gareeya muuqaalka like saara saaxiibadiina la wadaaga qaybta hoose ee faallada ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonayso inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu waqtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma ka raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul